tana iyo labaatan iyo lix sana qiimaha badan Turkiga oo kamid ah saaxibadii waaweynaa ee Maduro oo gabi ahaanba xitaa diiday in uu cambaareeyo qabashada iyo sidoo kale duufsiga Mareykanku uu qafaashay madaxweynihii waddankaas dalalka adduunka af labadii weli yeersan iyo anfariirka arrintaasi ka dhashay qodobada kale daawashana qiimaha badan maqli doontaan waxa weeye xabsiga lagu xidhayo ama laqangundada loo dhigay ay markaasi sabti dhexe xalay toole Naduro iyo xaasiisa iyo maxkamadda la saarayo nooca ay noqonayso oo markaasi u eg mid marba ka dambaysa ay su'aalo aad u weyn oo dhinaca sharciga ay tagay iyo dowladda Venezuela oo ilaa hadda dalbanaysa soo deynta madaxweynahoodii Maduro aan ku bilaabay dowladda Canada ayaa ra'iisul wasaaraheeda Mark Carney waxa uu soo saaray warmutiyada uu sheegay in bishii Maarso 2025 ay dowladda dalkiisu ay soo rogtay wuxuu ugu yeedhay cunaqabatayno ay saareen xukuumadda madaxweyne Maduro waqtigaasi kadib markii uu dhibaato aad u xooggan u geystay ayuu taliskiisu waxa uu ugu yeedhay markaasi dadkii banaanbaxayay iyo kuwii doonayay inay doorashooyin qabsadaan isagoo intaas ku daray inay dowladda Canada ay mar walba ay raadinaysay in madaxweyne Maduro uu talada ka tago isla markaana uu xatooyada doorashooyinka bilaabay 2018 dowladda Canada ayuu sheegay in ay hadirto ay soo dhaweynayso wuxuu ku tilmaamay barwaaqo dimuqraadiyad nabad iyo waliba baraare ee dadka reer Venezuela helaan Canada aad ay u taageeri jirtay ayuu yiri gabi ahaanba arrimaha nabadda iyo wada hadallada Venezuelana waxa ay mar walba ay doonaysay in la xushmeeyo ayuu yiri dimuqraadiyadda iyo in dadka reer Canada dadka reer Venezuela ayagooda ka tashadaan wuxuu muuqday inuu hadalkiisu u janjeero dhinacna inuu leeyahay kama xumin in Maduro la soo qoofalay dhanka kale haddana uu leeyahay dowladda Canada waxay kaliya taageeraysaa qorshe ay dadkaasi ay iyagu rabaan inay noloshooda iyo ayooda ka tashtaan ma rabno macnaha in uu leeyahay in si xooga dowladda madaxweyne Donald Trump ayadu ilaa xaliisay ku celcelinaysa in dalkaasi iyadu maamuli doonto kaliya ay qaadato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo muuqda nin aan kala biqsanaynin isla markaana aan ujeedooyinka uu ka leeyahay waddankaasi aan kala balabeenaynin waxa uu ku celcelinayaa kor iyo hoosba oo baraha bulshada iyo meel walba ka afuufaya in dowladda Mareykanku ay maamuli doonto dhaqan dhaqaale iyo waliba siyaasad waddankaasi wuxuuna ku tiraabsan yahay oo uu leeyahay kol walba waxaanu sii qaadi doonaa tallaabooyin muujin doona inaanu shidaalka iyo qannimada waddankaas qoomaarta aanu si dhaba annagu aanu noqonno kuwa ooga gaadha go'aamo masiiri ah oo ay ku jirto cidda cunaysa iyo cidda markaasi cabaysaba si kastaba ha noqotee arrintan ayaa waxa ay dhalisay kala qaybsanaan dadka reer Venezuela dadka gudaha Venezuela ku dhaqanaya wararku ay sheegayaan badankoodu in ay isku duman yihiin una arkaan arrintan xadgudub aad u xooggan qaar badanna ay gabi ahaanba xataa ay jeclaysteen haddii ay jeclaa lahaayeen in Maduro meesha dhaafo haddana aysan jeclaysan foolxumada arrintu ay ku dhamaatay iyo sidoo kale qaabka oo dowladda Mareykanku wax u amaamuday dhanka kalena wararka ayaa sheegaya in mar ka dambaysa ay sii socoto arrimo waaweyn oo ay ka bidkatay dowladda Mareykanku ay ka fikirto arrintan waxa ka dhalanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa amray in la saaro maxkamad sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragsan Maduro balse maxkamadda la saaraya ayaa dood aad u xooggan oo sharciyeed ay ka dhalan doonta maadaama ninkani uusan ilaa hadeerto dambi gudaha dalka Mareykanka ka gelin sidee u ekaa doontaa maxkamadda la saarayo taas waa su'aal isweydiin aad u xooggan oo mudan ayay leeyihiin qaar ka mid ah sharciyaqaanadu hase yeeshee waxaa lagu qabiray xabsi duleedka magaalada New York ee dalka Mareykanka ku yaala kadib markii ay FBI-du ay halabsatay diyaarad khaas oo ka soo qaaday markabka weyn ee xambaaray kasoo walwaalay ee USS Iowa kaasoo madaxweynaha dalka Mareykanka goorsi wareysay uu sheegay inuu sito ninka loo yaqaan Senator Bernie Sanders oo kamid ah dadka cadcad ee markaasi mucaaradka dhabta ku ah madaxweyne Trump ayaa sheegay in Donald Trump uu mar kale uu tusay sida uu u doonayo in uu dastuurka iyo markaasi sharciga caalamiga dalka Mareykanka uu u dhaafo isagoo sheegay in dowladda dalka Mareykanku gabi ahaanba aysan xaq u lahayn inay go'aan intay kaligeed qaadato waddan madax bannaan ay ka soo qabsatay madaxweynihiisii isla markaana xataa haddii uu yahay ayuu yiri nin musuqmaasuq dilooday iyo dictator ama dictator sida ayuu yiri Maduro oo kala cid u banaanaysa aysan jirin dastuurka dalka Mareykanka meel kuma taalo dadka dambiilayaasha ah ee dalalkooda dambiyada ka gala ama kuwa dictatoriyada sameeya ama kuwa dadkooda lacagta ka hada ee tuugada ah in Mareykanku uu mas'uul ka yahay oo soo qabto kadibna gudaha Mareykanka la keeno oo lagu maxkamadeeyo wuxuuna sheegay in mar kale aqalka dalka Mareykanku ay u baahan yihiin in laga ololeeyo oo la meel mariyo wuxuu ugu yeedhay the War Powers Resolution kaasoo ka dhigaya ayuu yiri gabi ahaanba sharci darro weerarada iyo howlgallada noocan oo kale ah ee mas'uuliyadda ka qaadaya ayuu yiri dalka Mareykanka kana dhigaya waddan gabi ahaanba gacantiisa isagoo sharciga ku qaata qori dablana dunida la wareegay Senator Bernie Sanders ayaa waxa uu sheegay in haddii dadka Mareykanku arrintan loo qaban waayo inay imaan doonto ayuu yiri in dadweynaha caalamku ay u arkaan Mareykanka waddan budladuura oo dalalaale dalkii ay qaniinaan doonaya isagu in uu si iskiisa u warmeeyo wuxuu ku tilmaamay in madaxweyne Donald Trump uu yahay nin gabi ahaanba laalay sharcigii dalka Mareykanka kuna tuntay
dalalka sida aadka u xoogan Venezuela saaxiibka oo lahaa wadamada caalam islaami ayaa kamid ahaa laakiin dalka Turkiga ayaa caan ku ahaa marar badanna xataa warbaahinta reer galbeedka oo Mareykanku ay ku jiraan waxa laga hadli jiray in la lahaa waxa la doonayaa in Maduro la geeyo dalka Turkiga halkaasoo dhexdhexaad ay noqon laakiinse dowladda dalka Turkiga ayaa ka gabangaabsatay inay cambaarayso xariga ninkaasi loo geystay waxaana ku baaqday istejin labada dhinacba lama garanayo hadalka in ay restrain ama restrain waxa loo yaqaan restrain andaho erga loo yaqaano ah diblomaasiyada afgobaadsi ah sababta ay u isticmaashay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi sababta ah waxa ay yiraahdeen si looga fogaado xaalad si darsanaysa iyo inay mar kale cilado waaweyn ay dhacaan dhinaca amniga dhinacyadu waa inay istejiyaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay ayadoo sheegtay in xasiloonida iyo nabadda dalka iyo dadka Venezuela ay daneynayso ma aysan cambaaraynin ficilka madaxweynaha Mareykanka uu ku soo qabartay ninkaasi sidoo kalena ma aysan daadifayn in shuruucda caalamiga lagu tuntay tanina waxay cadeynaysaa in dowladda xukuumadda madaxweyne Erdogan gabi ahaanba ay iska bedeshay mabaadi'dii lagu yaqaanay ee hore kuwaasoo ka dhiganaya leeyli inay muujinayso mar kale in Turkigu uusan noqon karin saaxiib weyn oo la isku hadlayo markay arrintu gaadho baraka male tanina waxa ay ka dhan tahay qaar ka mid ah wadamada oo qaarkood ay sheegeen inay ka argagaxay inkastoo dowladda dalka Shiinuhu arrintan iyo waliba dowladda Russia labaduba ay cambaarayeen hase yeeshee weli waxay sheegeen in ay ka argagaxeen ficilka noocan oo kala dhacay taasina waxay ka dhigan tahay in sirdoonnada Shiinaha iyo Ruushku ay ogaa waayeen qorshaha ballaaran ee xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay ka fulisay gudaha waddanka Venezuela taasoo dowladda madaxweyne Donald Trump kaliya inaysan ku guuleysan inay soo qabato Maduro iyo xaaskiisa laakiin waxay ku guuleysatay ayaa leeyli oo wax walba ka daran sida sirta loo qariyay Mareykanku sirtiisa ugu badan wuxuu ka qarsadaa shacabkiisa iyo siyaasiyiinta qaarkood sababtoo ah wuxuu leeyahay warbaahin af dheer kaasoo mudacyo waaweyn aad moodo sida cidiyaha dhuuriyada oo kala wata kuwaasoo tudhiba hela ayaa leeyli in ay cogta markiiba helaan ama se dadka qaarkood ay yiraahdeen dhagaha dameeraha iyo wata qofkaas oo kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in howlgalkan uu ahaa mid qarsoodi aadna loo abaabulay isla markaana warbaahinta oo dhan laga taxadiray inaysan ogaanin unaha howlgal ku dhammaaday in cadaaladda la horkeeno Maduro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli sii wada amaanta uu la daba joocsanayo xukuumadda iyo weliba ragga militariga ah dhanka kalena markii diyaaradda laga soo dejiyay Maduro iyo xaaskiisa Celia Flores ayaa tudhiba waxa laga galbiyay isla markaana laga gixeeyay oo convoy la saaray garoonka ciidanka cirka dalka Mareykanka Stewart Air National Guard Base ee magaalada duleedka New York ee dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu sii wada doono hanaanka dowladda Venezuela ayaa ku adkaysanaysa ilaa iyo hadeerto inaysan in yarna aysan dhig tiro ku sii doonin waxmana aysan ka bedeli doonin waxa ay ugu yeedheen madaxweynenimada loo imaamaday Maduro ayaa markaasi waxa la arkayay isagoo si aad xooggan u jeebaysan isla markaana ay dhinacyada iyo hareeraha ay kala socdeen xubno Nicolas Maduro waxa uu ekaa nin gabi ahaan badaal aad xoogan uu ka muuqdo isla markaana u ekaa in la soo silciyay waayo waxa la soo marsiyay sida wararku ay sheegayaan xarunta loo yaqaano ayaa la yiri markaasi Guantanamo Bay taasoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen inay dhibaato aad xoogan ay noqonayso warar dheeraad ayaa ka soo baxay hadaba qaabkii loo qabtay wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Mareykanka sidii runta ahayd uusan ka sheegin qaabka loo qabtay oo ahayd inuu doonayay in uu ku cararo ama uu ku cararo meel ammaana ama qol ammaana inuu galo inaysan saxayn laakiinse wararka ayaa xaqiijinaya in loogu tagay qolkooda chiefka iyo howlgalkii ka dhacay magaalada Caracas duleedkeeda waxaana wararku ay sheegayaan in labada lamaane oo markaasi sirritooda jooga la soo qabtay isla markaana ciidanka militariga dalka Mareykanka ayaa si aad u foolxun oo la dhaqmay ayaa la yiri waxaa la sheegay in sariirta laga soo riday labadoodaba isla markaana la jiiday dhulka kadibna ay ciidamada kale isku soo gaadheen kolkaana waxaa la sheegay in lagu amray in uu labada gacmood uu dhabarka saaro ayadoo ay dhibaato weyn ka haysatay dhinaca fahamka luqadda Ingiriiska uusan Maduro ku hadlin isla markaana uusan jeclay dabeedna waxaa la sheegay in laba askari midna uu tunka iskaga taagay mid kalena halka dhabarka shoulderska meesha loo yaqaano garbaha iyo dhabarku iska galaan in uu ka saaray markaasi ayaa la jiribka dabadeedna ay jeebeeyeen si aad u foolxun ayaa loola dhaqmaa taasna waxay dhalisay in xitaa laga gaari waayo in maryahooda ay helaan waxa ay wararku xaqiijinaya inay qaawanaayeen labadoodiba qaawanaan lagama wado sulum laakiinse maryaha uun hoos ka shiga kaliya ugu jiray waxaana la sheegay mid ka mid ah askartu inuu Maduro markii dambe uu siiyey dharkiisa hurdada taasoo ka dhignay in tracksuitka waxa loo yaqaano loo xulay oo ka weyn ama se aan qaab ahaan isaga u ekayn inuu lahaa waayo dhar madaxweyne gashado ma uusan gashanayn dhinaca kalena wararka ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu si aad xoogan
uu arrintan ugu ulug lahaa uuna mar walba dalbanayay in la sameeyo tallaabooyin aad iyo aad u xoogan. Trump ayaa arrintan fariimo cadcad ku diray sida ay wararku xaqiijinayaan. Fariimaha dhowrka uu dirayna waxaa ka mid ahaa in qofkii isaga amarkiisa diida in uu isdhiibo ama cararo